بشرى للمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي ومحدث كلا سبحانه وتعالى مركلة إنه سورة قلية برنامج كان لما رسوسي يعني بيدي نحرسي نبت قلية يعني إلهي سبحانه وتعالى ويدين إنه قارهاني محمد عليه الصلاة والسلام. انت هسكدب وبرنامج كي آخر الزمان توكس هو waxay nooga soo hadalnay lecture fara badan xooga waxaynu saarnay badankooga Yaajuuj iyo Maajuuj. alxamdulillahi rabbil caalamiin Yaajuuj iyo Maajuuj barnaamijkiisii waynu gabagabeynay. hore waxay nooga sheekeynay waxyaalaha yihiin waxaan dul istaagnay aayadihii qur-aankii iyo xadiistii. ugu dambeyntii waxaynu ka sheekeynay waxyaalaha mufakiriinta caalamka ee islaamku ka qabaan wixii laga yiri sidoo kale waxaynu dul istaagnay halka ka soo baxeen iyo dadka loo tuhunsan yahay iyo halka maanta ay joogaan tafiirtooda. sidaasaynu barnaamijka ku dhammaynay. hadda waxaan filayaa Yaajuuj iyo Maajuuj markaan idhaahdo waxaan ka sheekeynaya inaad fahmaysaan inaanan horta marnaba u jeedin dad dhaga waaweyn oo buuro qodayo dhulka ku hoos jira inaanan ka hadlayn. waad fahmaysiin arrintaasina waa mid ilaahay loogu mahadnaqo. barnaamijkanna muhiim bay u tahay haba ku qanacsanaanne waxaan ka hadlaya inaad fahanto waa mid muhiim ah. intaa kadib bal maanta waxaynu ka sheekeynaynaa abuuritaankii khalqiga iyo abuuritaankii nebi aadan calayhi salaatu wasalaam odaygii ibliis iyo sidoo kale waxaynu ka sheekeynaynaa dembiyadii waaweynaa ee ka dhacay samada. arrimahaasaynu bal maanta isdul taagaynaa. sababtuna aynu dul istaagayna waxa weeye markaad wax walba bilowgiisu og tahay ayaad runtii waxaad fahantaa waxyaalaha socda dhammaadkiisana siduu u dhici karo waad ogaan kartaa. bal waxaan maanta caalamka ka socda iyo koonkan iyo siduu ku yimiday xoogaa inaan darasno way u baahan tahay. laakiin markaan darsayno halkee loo raacayaa waxaynu soo baranaynaa evolutionka Darwin mise meelo kale oon aadi karna ayaa jira. runtii jawaabtu waa simple. Darwin arrimihiisu conclusion maaha sax ah oo xaq ah. waxa xaqa ah ee keliya waxa weeye waa kitaabka qur-aanka ee kariimka. sidaa darteed ilaahay subxaana wa tacaala koonkan intuuna abuurin ee cadceedda iyo dayaxa la abuurin ee samaawaadka la abuurin ee bini aadamka la abuurin ee waxbaba la abuurin khalqi buu ilaahay abuuray. khalqigii ilaahay abuuro amiinul waxyi baa ugu horreeyey oo malaku jibriil ah. malaa'igtuu ilaahay abuuray markaa malaa'igta ilaa iyo maanta ilaahay waa abuuraa. maalmo dhexdaas waxaynu la soo wadaagnay clip ahayd in baytul macmuur ay ku tukadaan 70,000 oo malag. 70,000 ee malag ayna dib ugu soo noqon. waxaynu xisaabinay taariikhda miilaadiga inagoo raacayna bal inta malag ee taariikhdu markay kow ahayd ilaa maantay 20 iyo ma garanaysaa ay 20 tahay inta malaa'igii haddaba ku tukatay baytul macmuur baan xisaabinay. waxay noo soo baxday ahayd 51 bilyan oo malag inay ku tukadeen. haddaba haddii bal aad xisaabiso haddana taariikhda uu sheegayo cilmiga secularka ah ee big banka ka soo bilaabmaysa ee lagu qiyaasay 14.5 billion years. bal haddaad intaa ku jiido 70,000 oo malag maxaa ku soo baxaya? waxaa laga yaabaa inay xisaabtaasi dhowr page buuxiso qoridoodu. malaa'igta tiradoodu ilaahay u baa og, laakiin waxaad ka qiyaas qaadan kartaa xisaabaha aan imikaba idinla wadaagayo.
ilaahay markii malaa'igta uu abuuray waxaan odhan karnaa fayskaasi wuxuu ahaa wejigii koowaad, face 1. ilaahay subxaana wa tacaalaa waxaa abuuray haddana koonka aan ku nool nahay iyo dhulkan maanta aynu dul joogno. ilaahay markii haddaba uu abuuray wuxuu inoogu sheegay in dhulka iyo samaawaadka ilaahay abuuray in ay qaateen 6 cisho. haddaba 6da cisho ay qaateen waxaan odhan karnaa waa 6deenna cisho, mise waxaan isweydiinaa 6daa cisho ma 7 maalin la'baa? waxaa kuu soo baxaysa markaad arrimaha isweydiiso eed qur-aanka ku noqoto maalmaha ilaahay ka hadlay ee 6da ku tilmaamay inayna marnaba ahayn maalmaheenna, inayna marnaba ahayn 7 maalin la. waxaa kuu soo baxaysa ilaahay in uu abuuray wakhtiyo kala duwan, wakhtiyaduna iyo wakhtiguna inuun ahayn wakhtigan aan naqaano ee maalintiisu 24 saacadood tahay. haddaba ilaahay subxaana wa tacaalaa 6daa cisho wuxuu inoogu sheegayey da'da uu caalamkani jiro, da'da uu dhulku jiro, da'da ay samaawaadku jiraan. ilaahay markaa wuxuu yidhi koonka dhanba wuxuu jiraa da'diisu waxa weeye 6 cisho, dhulkuna wuxuu jiraa 2 cisho, samaawaadka kalena waxay jiraan 4 cisho. marka la isku darana waxay wada jiraan 6 cisho. dhulku wuxuu jiraa 3 qayboodow qayb ka mida inta uu koonku jiro. maadaama koonku 6 cisho jiro dhulkuna 2 yahay waxay ka dhigan tahay 3 qayboodow qayb ka mida inuu dhulku jiro. cilmiga sekularka markaad ku noqoto wuxuu ku leeyahay 14.5 billion years buu koonku jiraa, dhulkuna wuxuu jiraa 4.5 billion years. markaad dhinac kale ka eegto waxaa kuu soo baxaysa 4.5 billion years in ugu dhowaad ay tahay 3 qayboodow qayb ka mida 14.5 billion years. halkaasi waxaan ku soo gunaanadi karnaa maalmaha ilaahay ka hadlayay waxay ahayd da'da dhulkani jiro. waxaan ku noqonaynaa markaa malaa'igta wakhtigii la abuuray ayaa inoo sheegi karaa goormay ahayd. ma 2 sano ka hor adduunka intaan la abuurin baa la abuuray? ma 3 sano? ma 10? ma 100 sano? ma 1 milyan? brofeserada harford jooga arrintaa ma ka jawaabi karaa? ayaa ka jawaabi karaa. arrintaa waxaa ka jawaabi karaa oo keliya ilaahay subxaana wa tacaala. aqoontan wax lagu qiyaaso ma ku soo ogaan karnaa? xaasha. abuuritaankii malaa'igtu wakhtiguu ahaa iyo goortay ahayd ilaahay uunbaa og, cid kaloo ogey ma jirto, cid kaloo kuu sheegi kartayna ma jirto. odayga ibliisee da'da badan lina kuu sheegi kari maayo. ilaahay haddaba malaa'igta wakhtiguu abuuray iyo intay jiraan inooma sheegine waxaa inoo sheegay, laakiinse dunidani intay jirto way inoo sheegay. wuxuu inagu yidhi 6 cishay jiraan, koonkani wuxuu jiraa 6 cisho. 6daa cishana 6deenna cisho ee naqaano maahin. maalin kale ayaa bal waxaan eegaynaa markaa 6daa cisho waxay ka dhigan tahay iyo intay leeg tahay haddii loo bedelo maalmaheenna caadiga. intaasi waa lecture kale. markii haddaba caalamkan ilaahay abuuray ee fayskii 2aad oo caalamku ahaa waxaa fayskii 3aad noqday oo ilaahay uu abuuray jinka. waxaa la abuuray markaa odaygii ibliis oo ahaa aabbihii
jinka. ibliis iyo tafiirtiisu waxay ku noolaan jireen dhulka muddo aan xaddigeeda aynu garan karin. malaayiin sannadood baa iskaga noolaan jireen dhulka. markaa intay ku noolaayeen way fasahaadiyeen, way islaayeen, dhiiggay daadiyeen. arrimahaasoo dhan markii ay sameeyeen, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo diray malaa'igtiisa halkaas oo ay ku dabargooyeen jinkii dhulka joogay. intii markaa ibliis oo hoggaamiyahooga ahaa, aabbahoodna ahaa, kay ka tafiirmeenna ahaa, sida innagaba nebi aadan calayhi salaatu wasalaam aabbaheen u yahay, intii rumaysay iyo isaga waxaa loogu abaalguday markaa ee fasahaadkii markaa dhulka ka socday ka dhowrsatay in samada ilaahay u qaado. markaa samada markii loo qaaday, intii kalena waxaa hayfaha u qaaday oo laysay malaa'igta ilaahay. malaa'igta iyo awoodaha ay leeyihiin iyo dhaqankooga iyo waxa lagu yaqaano iyaga laftooda waxaynu insha allahu tacaala ku eegi doonaa barnaamij kale. arrin markay haddaba halkaa marayso ee fayskii saddexaadna oo sidaa kusoo gabagaboobay muddo aynu taariikhdeeda aynanu hayn, ilaahay subxaana wa tacaala maadaamuu uu yahay ka og furayaasha kownkan, waxa uu malaa'igta u sheegay inuu hadda dabacsan yahay inuu abuuro bili-aadan. bili-aadankaas oo ilaahay uu ka abuurayo dhoobo. waxaan markaa intaanan sii furfurin qisadii nebi aadan calayhi salaatu wassalaam aan dib ugu yar noqonayaa. ilaahay malaa'igta uu abuuray wuxuu inoo sheegay inuu ka abuuray nuur. waxaynu ognahay aqoonta sayniska ah ee cilmu ma garanaysaay sekularka ah, waxaynu ku baran karnaa oo aada arki kartaa nuurku inuu yahay electromagnetic waves, iftiinkaas electromagnetic waveska ah in qaybna aan aragno, qaybana aynanu arag. innagu markaan bili aadan nahay, qaybaha aynu aragno waxaynu nidhaahnaa markaa iftiin, nuur. ilaahay markaa wuxuu yidhi malaa'igta waxaan ka abuuray nuur, taasoo macnaheedu tahay malaa'igta waxaan ka abuuray qaybta electromagnetic waveska ee visibalka ah ee lightka loo yaqaano, qaybtaasaan ka abuuray. ma garanaysaa markaa waxaa kuu soo baxaysa malaa'igta electromagnetic waves in laga abuuray, gaar ahaan inta visibalka ah in laga abuuray, oona marnaba laga abuurin qaybaha aan la arag ee sida ultravioletka ama sida infraredka oo kale. iyo haddaba su-aal inaad isweydiisaan laga yaabaayo, malaa'igta haddii nuurka laga abuuray welibana qaybta visibalka ah, maxaynu u arki weynay markaa? su-aasha jawaabteedu waxaynu ku eegaynaa lecture kale. sidoo kale ilaahay waxaa inoo sheegay markaa fastry markii la abuurayay oo jinka ahaa, in ilaahay jinka ka abuuray min qabl hore, inuu ilaahay uga abuuray dab holcaya oo bilaaqiiqa. markaa waxaynu ognahay aqoonta sekularka ah, chemistryga markaad baadho, dabku sidiisaba gubashadu markay dhammaystiran tahay in ay bixiso water fiber iyo carbon dioxide, oyna qiiq lahayn. wax qiiq la yidhaahdo oo dabkaa ka soo baxa markuu gubashadaasi dhammaystiran tahay qiiq ma bixiso. laakiin marka ayna balance garaysnayn ama hawada
gubaysaayey ayna ku filnayn reactionka waxaa ka soo baxa gubasho aan dhammaystirnayn sidaasna waxaa ku soo baxa water vapor iyo carbon monoxide kaas oo markaa qiiq noqonaya. laakiin gubashadu marka ayna dhammaystirnayn waxaa markaa soo baxaya carbon monoxide. haddaba sidoo kale waxaad ogaanaysaa ololka in uu yahay uun qayb ka mid ah electromagnetic waveska. marka maadaama uu ilaahay inoo sheegay subxaana wa tacaala malaa'igta inuu nuur ku abuuray, nuurkiina electromagnetic waves uu yahay, malaa'igtuna gaar ahaan ay yihiin qaybta visibalka ah, qaybaha kulka keena waa qaybaha ma garanaysaa infraredka iyo ka dambeeya. marka ma odhan karnaa jinka waxaa laga abuuray qaybta electromagnetic waveska enan la arag, gaar ahaan infraredka iyo wixii dhinacaa ka xiga ayaa laga abuuray. arrintaa oo dad badan ka dhawaajiyeen waxay u yar muuqataa inaad isku fikir noqonayno kuwa yidhi ibliis malaa'igtu ka mid ahaa uunbay ku soo dambaynaysaa markaynu nidhaahno electromagnetic waves uunbaa laga wada abuuray, ama qayb ka mid a aan aragno ama qayb ka mid a yeynanu arkine dee isla electromagnetic waves bay noqonaysaa. markaa malaa'igtuu ibliis ka mid ahaa dee shirkiga ahayd uunbay arrintaasina noqonaysaa. maxaa markaa jinka laga abuuray dabkan holcaya ee bilaaqiiqii maxay ka dhigan tahay? waxaan odhan karnaa maadaamu ololka iyo qiiqa oo sumad u yahay tamar energy, dabku marku uu bilaaqiiq yahayna complete ma garanaysaay gubasho ay dhacdana enerjiga ugu badani uu soo baxayo in laga sameeyey jinka tamar. jinku haddaba conclusionkaygu wuxuu yahay waxaa laga sameeyey energy, malaa'igtana waxaa laga sameeyey iftiin. intkaynu aragno electromagnetic waves ayaa laga sameeyey oo kaynu aragno ah. intaa markaynu ogsoonnahay, ilaahay markaa wuxuu yidhi malaa'igtiisa intuu iskugu yeedhay waxaan abuurayaa bini aadan, waxaanan ka abuurayaa dhoobo. dhoobadaas oo macnaheedu tahay bini aadan baan abuurayaayo waxaan ka abuurayaa element, curiyayaal. dhoobadii ilaahay inaga abuuray subxaana wa tacaala maanta jidhkaaga markaad ku noqoto ee darasto waxa uu ka samaysan yahay dhammaantii elements. unugyadaadu waxay ku dhisan yihiin elements. cuntada aada cunto waxay ka samaysan tahay element, taas oo dhammaanteed u noqonaysa carrada. carradu waxay ka samaysan tahay element, halkaas oo ah caddayn cad oonan u baahnayn in laga faalloodo in aynu ka samaysannahay dhulka. ilaahay wuxuu inaga sameeyey element. jidhkeenna elementyada ku jira mid ka mid a oonan dhulka jirin ma jiro. dhammaan elementyada aan ka samaysannahay oo majoritygoogu u badan yihiin carbon, hydrogen, oxygen iyo nitrogen, dhammaantood waxaa laga soo helaa carrada. intaas haddaba waxaynu ku kala ogaanaynaa makhluuqyada ilaahay sameeyey siday u kala duwan yihiin. bini aadanka oo ka samaysan element, malaa'igta oo ka samaysan electromagnetic waves, jinka oo ka samaysan energy. halkaas waa teermiyada culumtan iminka isticmaasho, laakiin sida caadiga ah
ee beysiga ah markaan kugu sheegana waxa weeye dadka dhoobaa laga sameeyey, jinkana dab baa laga sameeyey, malaa'igtana nuur baa laga sameeyey. intaa markaynu isla ogsoonnahay haddaba ee ilaahay malaa'igtiisii u yeedhay ee uu ku yidhi bini aadan baan abuurayaa oo dhulkan khaliifo uga dhigayaa oo dhoobaan ka abuurayaa, ilaahay subxaana wa tacaala halkaa markay qisadu inoo joogto ayaa haddaba waxaa muhiima inaan ku xasuusiyo qur-aanka kariimka ilaahay markii uu soo dejinayay qaab iyo xikmad aada u gundheer buu ilaahay ku soo sareeyey. xikmaddaas oo ilaahay fahankeeda uu ugu tala galay addoomihiisa fikiraya ee maalin walba uu ku leeyahay miyaydaan fikirayn in ay madaxa kaga shaqaysiiyaan oy tadabbar ku sameeyaan oy wax iska weydiiyaan, laakiinse si taa ay u sameeyaanna imtixaan wal uu inoo dirayo wuxuu ina siiyey tusaalihiisii baa inala siiyey, kaasoo ka dhigan sidaa taasi ay u dhacday een tusaalaha idinku siiyey sidaa sameeyo saa u raaca. cibaadadiisa markuu inoo sheegayey nebi baa inaloo soo diray, sidaa nebigaygu yidhi ee uu idinku yidhi wax u samaynaya sidaa yeela. haddaba waxaan uga jeedaa qisooyinka qur-aanku qaarkood badankoogu qur-aanka suurad bay ku kala jiraan iyagoo googoosa ama haaf ah. ilaahay subxaana wa tacaalaa wuxuu uga dhig inoo sidaa loogu soo dejiyey qaybtaa yare ee suuradaha ku jirta mid innaga inoo ah imtixaankii waa imtixaan. tusaalihii markaa ilaahay wuu soo raaciyey qur-aanka wuxuu soo dejiyey ilaahay subxaana wa tacaala suuratu yuusuf oo dhammaystiran, qisadii oo dhammaystiran bilow ilaa dhammaad. ilaahay markaa wuxuu yidhi tusaalihii waa idin siiyee qisooyinka kale idinku yaa ulil albaab, yaa kuwa fikiraya, yaa mutadabbiruuna alqur'aan, idinku isku soo xidhxidha kuwa kale, isku keensada qisadii oo dhammaystiran samaysta idinku. halkaasna waxaa ku jira cilmi fara badan iyo xiise fara badan, curiosity fara badan, in qur-aankii aada akhrido, in aada darasto, inaad su-aale isweydiiso, inaad tidhaahdo halkani waa sidee, halkani waa oo aada wax isweydiisood fikirto, fikirkaagaasina oo ma garanaysaa aakhirka jawaabta saxda ah uu kugu beego buu ilaahay ugu talagalay. haddaba qisadii nebi aadan calayhi salaatu wasalaam markaynu bilowno, ilaahay markii malaa'igta uu ku yidhi waxaan abuurayaa ma garanaysaa bili aadan oo dhoobaan ka abuurayaa, malaa'igtii waxay ku tiri iyagoo ogaa jinkii wixii dhulka uu ka sameeyey iyo dagaalkii ay la galeen, ma khalqi kale oo dee dhiig daadiya oo dhulka fasahaadiya ayaad ilaahay samaynaysaa? annagaa ku tasbiixsanayna. ilaahay wuxuu ku yidhi waxaydaan ogeyn baan ogahay. ilaahay subxaana wa tacaala markaa wuxuu abuuray nebi aadan. markii haddaba ilaahay subxaana wa tacaala nebi aadan uu abuuray ee malaa'igta uu u sheegayey, malaa'igta wuxuu u sii sheegay, wuxuu sii amray, wuxuu ku yidhi markaan nebi aadan abuuro een ruuxdayda geliyo u sujuuda buu ku yidhi. eegada isla markaa ilaahay malaa'igta uu ku lahaa bili aadan baan abuurayaa, ee malaa'igta ku yidhaahdeen ilaahayuma bili aadan dhulka fasahaadiyaad abuuraysaa, ee ilaahay ku yidhi subxaanahu wa tacaalaa ma garanaysaaye waxaydaan ogeyn baan ogahay. ilaahay shirkaa wuxuu ugu sheegay malaa'igta marka haddaba aadan aan abuuro
ee ruuxdayda geliyo waad u sujuudi doontaan buu ku yidhi. macnaha waad salaami doontaan, anaa idin keeni doono waad salaami doontaane malaa'igtaydiyey sidaa ula socda buu ku yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. arrintaasi markay saa u dhacday, ilaahay nebi aadan buu abuuray. nebi aadan markii uu abuuray ee la dhammaystiray, waxaa loo keenay malaa'igtii markii loo keenay, ilaahay subxaana wa tacaala aadam wuxuu baray asmaa'a kullahaa, wax walba, magac walba, magac samada ka jira iyo ku dhulka ka jiraba, magac walba ilaahay wuu baray, waxba ugamuu tegin, asmaa'a kullahaa buu ilaahay yidhi. markaa intaad rigaad markaad dhinaca ka eegto, dhinaca aqoonta, dhinacyada magacyada bini aadamku cilmigoogaasi waa dhammaystiran yahay, waayo dhinacaa ilaahay waxba inoogama tegin, waa ina wada siiyey, waa ina wada baray. ilaahay subxaana wa tacaalaa markaa aadan uu asmaada baray kullahaa, ayaa waxaa magaranaysaayey malaa'igtii ayuu haddaba ilaahay ku yidhi waxaad ii sheegtaan ashyaada magacaantooda. malaa'igtii markaa ilaahay waxay ku yidhaahdeen, ilaahayow intaadna bartay mooyaane in kale garan mayno, ashyaadaana waxaan ku tilmaamno maba garanayno. ilaahay wuxuu ku yidhi markaa nebi aadan calayhi salaatu wasalaam, nebi aadanow bal adigu u sheeg. nebi aadan baa markaa dabada ka maray oo tiriyey, kani waa kaa, kani waa kaa, kaasi waa kaa, kani waa kaa, kaasi waa kaa. arrintaas malaa'igtii tacajub bay ku noqotay. arrin waxay noqotay very impressive ah oo malaa'igta aada u soo jiidatay. way la dhaceen, aada bay uga heleen. maalintaa waxaa abuurantay in malaa'igtu khalqigii ilaahay abuuray ay jeclaadaan. ilaahay markii uu arkay malaa'igtiisii oo tacajubtay, wuxuu ku yidhi miyaanad idinku odhan waxaydaan ogeyn ayaan ogah, maanan idinku odhan waxaydaan garanayn baan ogahay oon garanayaa, miyaanan idinku odhan buu ilaahay ku yidhi, isagoo xasuusinaya ilaahay. markaa sidaa markii nebi aadan loo qurxiyey ee malaa'igtii ula dhaceen ee sidaa loo sameeyey, shirkaa ilaahay iyo malaa'igtiisa dhex marayay ibliis qayb kamuu ahayn. ka hore ee malaa'igta lagula hadlayey na qayb kamuu ahayn. haddaba ilaahay markaa wuxuu go-aansaday in nebi aadan loo sameeyo markaa si uu complete u sii noqdo xaaskiisii xaawa, hooyadan xaawa ayuu ilaahay u sameeyey nebi aadan. weli markaa u sujuudadii ma dhicin, la soco hadda. xaawa markii la sameeyey ayaa haddaba ilaahay subxaana wa tacaalaa ee nebi aadanna dhammaystiran yahay, ee labadoodiiba dhammaystiran yihiin, ayaa ilaahay subxaana wa tacaalaa sidii malaa'igta uu hore usii faray waxaa iskugu yeedhay markaa khalqigii joogay samada. khalqigii samada joogay markii ay isku yimaadeen, ilaahay waxaa amray in ay u sujuudaan nebi aadan, macnaha ay salaamaan. halkaas markii ilaahay uu amray, malaa'igtu amar horena waa sii qabeen, marnaba ilaahay ma caasiyaan. malaa'igtiisay u dhannayd waa sujuudeen. waxaa markaa aan sujuudin ninkii ibliis. ilaahay markaa subxaana wa tacaalaa ibliis gaar baa u weydiiyo waxa ku yidhi, war ibliisow maxaad u sujuudi weyday? markaas buu ibliis yidhi isagoo faanaya, ilaahayow khalqigan aada abuurtay waxaad ka abuurtay dhoobo, macnaha element ayaad ka abuurtay. anigana waxaad iga abuurtay tamar, naar.
therefore aniga ayaa ka khatarsan oo ka wanaagsan oo efficient ka ah dhinaca hadday noqoto orodka ama ma garanaysaay masaafo jaridda ama capabilitieska maadaama anu energy ahay anaa ka wanaagsan elemadnadii abuurtay cayn waa faan noocaas ilaahay subxaana wa tacaala markii ibliis saa ku jawaabay qur-aanka haddii anad haddaba sidii aan hore idinku sheegay anad isu keenin oona daraasaynin waxaa kuu soo baxaya iminka suuratu saad oo kale markaa tegto in ilaahay markaa ku yidhi markuu sidaa yidhi qaala fakhruj minhaa fa innaka rajiim markaa waxaad odhanaysaa su-aal baa kugu dhacayso oo haddii ibliis la saaray oo jannadii laga saaray sidee buu markaa nebi aadan oo jannadii ku jira oo ma garanaysaa u waswaasiyey jawaabteed waxa weeye aayadaha qur-aanka ee suuratu saad suuratu baqara suuratu alxijr suuratu daaha suuratu alacraaf ku jira ee qisadan ka sheekeynaya isku keen daras fikir suuradeebaa markaa qisada bilowgeedii ka sheekeynaysa suuradeebaa number 1 ah waxaa kuu soo baxaysa qisada number 1geegu waxa weeye waa suuratulbaqara suuratulbaqara haddaba ilaahay wuxuu ku sheegay subxaana wa tacaala markii ibliis diiday in uu sujuudo ilaahay markaa wuxuu yidhi waqulnaa yaa aadama wowgaasi wuxuu sheegayaa qisadii inay xidhiidhsan tahay halka kale fakhrujta wow lama socdo markaa waxaa kuu soo baxaysa ilaahay markii uu diiday ninkan ibliis inuu sujuudo ilaahay wuxuu ku yidhi aadan iyo xaawa waxaad degtaan beerta dega geedkaasna ha u dhowaanina beertaa intaad ku jirtaanna dhibaatoon maysaan cawradiinu idiin muuqan mayso sidoo kale ilaahay wuxuu u sheegay waqtigaas nebi aadan calayhi salaatu wasalaam in ibliis cadowgiisa yahay wuxuu ku yidhi ninkaad ma garanaysaay maanta ku salaami waayey ee ma garanaysaayey kuu sujuudi waayey waxaad la socotaa waa cadowgaaga ilaahay subxaana wa tacaala suuratu daaha haddana wuxuu ina xasuusinayaa in nebi aadan intaa markaa jannada uu gelin inuu ballan ka qaaday walaqad axidnaa ilaa aadama min qabl fa nasiya buu ilahay yidhi markaa ballan baanu ka qaadnay nebi aadan iyo xaawaba waxaanu u sheegnay ninkaasi inuu cadowgooga yahay jinka la ydhaahdo ee ibliis ninkaa inay iska ilaaliyaan baan u sheegnay waxaan u sheegnay inuuna jannadaa auna ka soo saarin waxaan kaloon u sheegnay geedkaa inayna cunin arrintaas oo dhan waa qaateen laakiin markii dambe waata keenaysa waa ilaaween markaa ilowgiina waa magaca halka bili-aadannimada insaanku inooga baxay haddaba markii nebi aadan calayhi salaatu wasalaam uu sidaa isagii xaaskiisii jannada ku galeen ibliis waxaa halkaa uu ku galay dembigii ugu horreeyey hadda maaha dembigii keliyatuu galay maaha in badan baynu maqleen dembi keliya ibliis gale no qur-aanka inaan u yar fiirsano baan u baahanay ibliis dembi keliya ma gelin kaas baa ahaa dembigii koowaad ee uu samada ku galo oo ah in uu ilaahay amarkiisa diiday ibliis markaa isaga oo weli raba in uu buruuf gareeyo khatarnimadii uu sheeganayay ayaa wuxuu yidhi jannadan ay galeen waa inaad ka soo saartaa ibliis markaa nebi aadan iyo xaawuu u tegay wuxuu u sheegay wixii ilaahay u sheegay maahina wax ka duwan waswaasku halkaasuu ka yimiday
waswaaskuba sidiisa waxa weeye waa markaad information aad hore u haysatay information kii kullidiya marka lagu sheego waxaa dhacaya waswaas shaki baa ku galaya waa kee makan baa runa waswaas baa ku galaya ibliis markaa wuxuu galay dembigiisii labaad isaga oo been sheegaya wuxuu been ku sheegay wuxuu yidhi wandhiyahow geedkan la idiin diiday wax kale la idinkuma diidine inaad noqotaan malaa'igta laba malag inaad noqotaan ama inaad ka mid noqotaan kuwa waara unbaa ma garanaysaa la idinku diidan yahay ee iska cuna had iska waartaane ama aad malaa'ig noqotaane ibliis markaa muxuu uga jeeday aad waartaan malaa'ig aad noqotaan garanaya ibliis isaga qudhiisu ma wuxuu ahaa cilmul qaybka ayuu wax ku ogaa ma wuxuu ogaa inaa dhulka loo soo degayo ma wuxuu ogaa inaa la dhimanayo halkuu ku keenay muxuuse ku keenay in nebi aadan uu dhiman karo oo uu baahan yahay inuu waaro waxaa kuu soo baxaysa waaritaankaasi astaan wuxuu u yahay ilaahay subxaana wa tacaala waaritaanka ilaahay unbaa iskale ilaahay wuxuu inoo sheegay dhulka khalqiga malaa'igta jinka wax wal oo jira in uu ilaahay ma garanaysaa dilayo wejiga ilaahay oo keliya tira soo hadhayo kadib ilaahay malaa'igta dib baa loo soo noolaynayaa bini'aadanka dib baa loo soo saarayaa jinkii dib baa loo soo saarayaa arladii iyo dhulkii la baabiyeyna ilaahay dib intuu u sameeyo baa la fidin doonaa markaa waxaa ku cad waaritaanka ibliis ka hadlayay macnaheedu wuxuu ku lahaa nebi aadan iyo xaawa ama laba malag baad noqonaysaan ama laba ilaah ee geedka cuna haddaba arrintaas markii uu sidaa ku yidhi ibliis wuxuu galay dembigii labaad ee uu samada ku galo dembigaas oo ahaa been buu sheegay ibliis waxa uu ku hadlayay ee gaalada qaarkood ilaa maanta rumaysan tahay ee ay moodayaan sida magaranaysaa abalkan yar ee shirkadda abalku adeegsato haddii geedkii oo dhammaystiran ay helaan in aqoontii ay helayaan oy waari doonaan oo ilaahay noqnoqon doonaan arrintaasi inay been tahay baa cad waa been uu ibliis sheegay ilaa imikadanna dad baa ku dhegan beentii oo run u haysta markaa si haddaba ay u sii rumaystaan welibana dembigii ugu weynaa buu ibliis galay oo dembigaasi muxuu ahaa kii samada lagaga soo dejinayuu markaa galay ilaahay buu ku dhaartay markaa ninkii ibliis wuxuu ku yidhi ilaahay baa ku dhaartee anigu idinkaunba nasteexidina ilaahay markaa been buu ugu dhaartay ibliis halkaas ibliis wuxuu ku galay 3 dembi oo waaweyn halkaas waxa waswaas galay oo shikiyey nebi aadan iyo xaawa kadib markii odaygii ibliis uu hortooda ku dhaartay isaga oo welibana samada jooga markaasay is yidhaahdeen malaha haddii uu kol dhaartay malaha waxbaa ka runa wuxuu sheegay doonidda bini'aadanku ay doonayaan awood raadinta ee ilaahay uu ku abuuray tii fidrada iyo waswaaskii ayaa ku keentay in markaa nebi aadan iyo xaawa geedkii ay cunaan markii ay cuneen waxa u muuqatay cawradoodii wixii ibliis sheegayey been iyo bug bay noqotay kadibna xishood bay caleemihii jannada ku yaalay ay damceen inay cawradooda ku qariyaan ilaahay subxaana wa tacaala nebi aadan iyo xaawa oo arrintaa ku jira ayuu la hadlay markaa wuxuu ku yidhi miyaanan geedkan aada cunteen aan idinku odhan ha cunina iyaga oo markiiba dareemay oo in been loo sheegayna gartay wixii lagu yidhina inuu been noqday ogaaday isla markiiba
waxay ku yidhaahdeen way ku jawaabeen xaawo iyo nebi aadan ilaahayow nafahayagii ayaan dulminnay haddii aad noo dembi dhaafi weydana waxaan ka mid noqonaynaa kuwa khasaaray saasay ku jawaabeen waa ducadii ugu horreysay ee bili aadan ku ducaysto ducadaasay ahayd ducadii ugu horreysay ee bili aadan ku ducaysto ducadaasay ahayd waxaa kuu cad ducadaasi waxaa kuu soo baxaysa qofka mu'minka ah markuu khaldamo in ay tahay duco aad iyo aad muhiim u ah inaad ku ducaysato ilaahay subxaana wa tacaala markii nebi aadan iyo xaawa ay mar keliya iyaguna 3 qalad oo waaweyn ay ku galeen isla daqiiqad hadda qalad keliya urmay galeen 3 ba iyaguna isla markiiba goosteen ilaahay wuxuu ku yidhi dhammaantood baxa oo ka baxa jannada oo u dega dhulka halkaasi ayaad muddo kooban wakhti aan ogahay aad ku noolaanaysaan idinkoo cadow isku ah baxa buu ilaahay ku yidhi markaa haddaba waxaa haddana aan dul istaagayaa intaanan tafaasiil kala galin ilaahay subxaana wa tacaala 3 qalad ee uu inoo sheegay inay galeen ee qur-aanka inaan kala soo baxna ay tahay maxay yihiin nebi aadan iyo xaawa 3 qalad bay galeen markaa number 1 waxay galeen geedkaa ha cunina baa lagu yidhi geedkii way cuneen number 2 ballan bay ilaahay la galeen ballantii way oofin waayeen number 3 waxaa lagu yidhi ninkaa ibliis waa cadowgiinna iyaanu jannada inaga soo saarin ha rumaysanina ka durka ninkiiba oo saaxiib iskaga dhigaya baa u yimiday wuu u dhaartay way iska rumaysteen very innocent way rumaysteen 3 qalad bay galeen jannadiina uu ka soo saaray sidii bayna ku rumaysteen ninkii looga digay markaa komaanadii ilaahay siiyey mar keliyay wada jabiyeen 3 jeer bay saa ku jabiyeen sidaas bayna ma garanaysaay qaladkii u galeen ilaahayna markaa wuxuu yidhi markay qaladkaa galeen ilaahay bay caasiyeen buu ilaahay yidhi markaa markii jinkii iyo bili aadankiiba ilaahay saa ugu caasiyeen samada labadoodiiba ilaahay waxaa gartay inay dhulkan u soo degaan muddo cayiman haddaba ilaahay markii uu ku yidhi dega odaygii ibliis ayaa yidhi markaa isug ilaahayow buu yidhi ii kaadi ilaa yowmil yabcasuun isug ilaahay wuxuu ku yidhi markaa waa lagu sugi laakiin ilaa yowmal yabcasuun lagu sugi maayo yowma yabcasuun waa xitaa yowmalqiyaamaha kadib marka bini aadanka la soo saarayo waagaa isug buu yidhi ilaahay isagoo ogaa waxyaalaha ay hadda ku hadaaqaan gaaladu oo isku haysta koonkani markuu baaba'ayo in ay jiri karaan cid ka badbaadaysa taas oo ata ibliis dalbaday taas oo u muuqanaysa in ay jiri karto cid awoodda ilaahay iska qarin karta haddii loo oggolaan lahaaba ilaahay markaa waa ka diiday wuxuu ku yidhi maalinaan ogahay ilaa ma garanaysaay maalin macluum ah wakhtigeedu ayaan kuu kaadinayaa buu ku yidhi waa lagu sugi laakiin lagu sugi maayo ilaa yowmal yabcasuun marka odaygii ibliis deadlinekiisu waxaa ku eegyahay ama qiyaamaha ka yar hor ama qiyaamaha laftigiisa inuuna qiyaamaha dhaafayn baa halkaas ka cad una ka dambayn doonin maalinta adduunkanba la baabiinayo ee cid walba dhimanayso ee ma garanaysaa naf walba la qaadayo maalintaasi kama dambaynayo oo inta ma garanaysaa dadka lasoo toosinayo ee lasoo saarayo ibliis loo kaadin maayo ilaahay waa tiiday intaa markaa haddaba isla garteen in la sugo ibliis waxaa yidhi ilaahayow ninkaa asaga dartii aan u dagmay
cisigaagaan ku dhaartee iyo durriyaddiisaba karkaarkaan weydaarin doonaa dhinaca midig baan kaga iman dhinaca bidix baan kaga iman gadaal baan kaga iman halka horaan kaga iman dhinac walba waan kaga iman yaa in yar mooyaane badankooga waan duufsan doonaa oo aniga i caabudi doonaan halkaasuu ibliis ma garanaysaaye uu dhaar ku galay ilaahay subxaana wa tacaala isagoo u jawaabaya markaa ibliis iyo qabka weli ku sii jira ee weli uu ku soo indha adag yahay ilaahay wuxuu ku yidhi adiga iyo inta ku raacda ee iyaga ka mida waxaan u diyaariyey jahannama iyo naartay gelayaan waxayna leedahay 7 albaab qayb kastoo idinka midina qayb iyada ka midaan ma garanaysaa calaa madax u gelin doonaa ee meeshan ka bax baa lagu celiyey markaa baxa oo dega sidii bay markaa bini'aadankii iyo jinkii ku soo degeen ilaahay markaa wuxuu yidhi idinkoo cadow isku ah dega dadka qaarkood baa markaa waxay idhaahdaan idinkoo cadow isku ah dega baa la yidhi dumarka iyo ragguna sidaasaan cadow iskugu nahay waa been iyo bug weeye waxaas cidda cadowga keliya ta isku ah waxa weeye waa cidda ibliis raacsan iyo cidda ilaahay raacsan baa cadow isku ah xitaa bini'aadanka iyo jinkoo dhani cadow iskuma ah haddaad ibliis la socoto dee friend of ibliis baa tahay ma cadowgaagaaba haddaad friend la noqoto marka koowaad baa cadowgaaga laakiin haddaad iska ilaalin weydood raacdo his friend baa tahay markaa cadowga ilaahay baad noqonaysaa cidda markaa cadowga isku ah waa cidda ma garanaysaa ilaahay iyo jinka kala taageersan unbaa cadow isku ah awliyaa'ullah iyo awliyaa'u shaydaan ayaa cadow isku ah laakiin ragga iyo dumarku cadow iskuma aha taasina waxay ka hor imanaysaa haddii la yidhaahdo komaanada qur-aanka ku jira ee ilaahay uu sheegay ee ragga iyo dumarku markay isguursanayaan ilaahay uu yidhi mawadatan waraxma ayaan idin dhex dhignay dad cadow ah oo ilaahay marka horeba cadow ka dhigay naxariis iyo kalgacayl lama dhex dhigi karo marka dadka saas ku fasirana arrimahoogaasi waa bug iyo been waxaynu markaa u soo noqonaynaa saasay ku soo degeen qisadii awalu samaan saasay u dhacday nebi aadan calayhi salaatu wasalaam markaa ilaahay mar kale waa la hadlay intayna degin waxaa lagu yidhi ma garanaysaaye wixii calaamad ani dhinacayga idinka soo gaadha qaata markaad qaadataan ninkii qaata ee durriyadaada ka mid a ma garanaysaaye faqad hadaa waa nin hanuunsan ninkii kalena ma garanaysaaye waa nin hallaabay kuwaasna waxaa u ballana jahannama mar kale intaasuu ilaahay u sheegay ma garanaysaay nebi aadan iyo in ilaahay calaamadihiisa soo dirayo calaamadihiisaas oo ah diimihiisa rusullada sidaasuu ma garanaysaay nebi aadan iyo xaawana ku soo degeen saynkii ugu horreeyey ee ilaahay dirayna sidii bay ku qaateen aadan iyo xaawa sidaasaa ma garanaysaay ilaahayna markii dambe uu uga toobad aqbalay maadaamuu bilowgiina dembi dhaaf weydiisteen markii kadibna dembi kale ayna la imanin ilaahay sidiibuu uga toobad aqbalay hooyadeen iyo aabbaheen sidii bay ku noqdeen dad saalixiin ah oo wanaagsan oo bini-aadankan maanta jooga een ka mid nahay ee midabyada kala duwan leh ee afafka kala duwan leh ay ku yimaadeen markaa caalamkani markaa saasuu ku soo bilaabmay cidda keliya markaa cadowgeenna ah waa jinkaas jinkani markaa ibliis buu ka soo tafiirmay maxaa caddayn oo ah qur-aanka dadka odhanaya oday jaan la odhan jiray baa laga soo tafiirmay waxaliya wax ka jira male rukunno adag arrintaasi kuma taagna markaad qur-aanka aad ugu noqoto qur-aanku mararka qaarkood uma baahna buug waaweyn inaad soo qaadato ama carabi waaweyn inaad u barato simbili wuxuu u baahan yahay sida kelmadaha qur-aanku u isticmaalo inaad indha u yeelato ood u yar fiirsato qur-aanku markuu si wax u isticmaalo ma bedela macnihiisa sidii uunbuu uga jeedaa maxaa tusaale u ah ilaahay subxaana wa tacaala insi iyo insaan si uunbuu wada isticmaalaa
macnaha insaanna dad gaagaaban ma tilmaamayso, insina kuwa dhaadheer ma tilmaamayso, dadka unbay sheegaysaa. waa bini aadam uun buu u jeedaa istil. markaa jin iyo jaanna waxay ka dhigan tahay uun waa insi iyo insaan, wax kaloo halkaa ku jiray ma jirto. aayadda ilaahay uu lahaa ibliis wa kaana min aljin uu ina leeyahay ee culimmada qaarkood daliilka uga dhiganayaan in jinku in ibliis uu jinka ka mid ahaayoonan isaga laga tafiirmin. haddiina aayaddaasi ilaahay qur-aanka ku soo diri lahayn, dadka ku dooda jinku malaa'ig buu ahaa ee yidhaahda malag gaaloobay buu ahaa, sida gaaladu uga tidhaahdo a fallen angel, jinka waxay u yaqaanaan malaa'ig gaalowday, laakiin inagu saa uma naqaano. markaa waxaynu la mid noqon lahayn qoladaa diintoodu qaladantay ee malaa'ig jinka ku tilmaamta fallen angel, malaa'ig ma garanaysa ay dambaabtay, kuwaasaynu la mid noqon lahayn. markaa ilaahay si aynanu kuwa ula mid noqonin, maadaama diintani loo soo diray in diimihii hore qaladaadka la geliyoo dhan ay daaha ka qaado oo ay caddayso, ilaahay markaa wuxuu yidhi jinku wa kaana ibliis wa kaana min aljinni, jinku ka mid ahaa. aayaddaasoo keliya ayaa waxay beenaysay 10,000 oo kitaab oo qoran oo yuhuudda iyo kiristaankuba ay qoreen oo qaldan. waxay sheegtay inuuna marnaba ibliis ka mid ahayn malaa'igta ee uu ahaa khalqi gaara. haddaba jaankan ibliis baa ka yimiday la yidhi, muxuu ku yimiday? wuxuu ku yimiday aayadaha ilaahay leeyahay jinka annagaa abuurnay oo waxaan ka abuurnay dab, oo ilaahay isticmaalay jaan. laakiin ma halkaasoo keliya tuu ilaahay day jaan ku isticmaalay? maya. ilaahay xororcaynta markuu ka hadlayay wuxuu yidhi dee insi iyo jaanba may taaban. markaa jaan hadduu odaygii hore ibliis ka tafiirma yahay, halka ilaahay insi ka isticmaalayna aadan baa la isticmaali lahaa, waayo dee labadaasaa isku dhigma soo ma. ilaahay mar kale u sii nebi muuse markii tuur lagu yidhi ee uu tuuray, ilaahay wuxuu ku tilmaamay jaan. culammadu waxay ku macnayaan markaa snake, mas, laakiin macnayntaa maska ay ku macnaynayaan waxay ka soo qaateen oo ka soo dheegteen aayad kale oo ilaahay leeyahay uu mas ku tilmaamaya, tii unbaa laga soo dheegtay. laakiin xarakaday doonta ha lahaatee, kelmadda jin iyo janna iyo majnuun waa the same kelima. same kelimadaasi jin iyo jaan macno u kala dhexeeyo sidaasa haba yaraatee ma jirto. aayaddaas ma garanaysaa jaanka ayaan dab ka abuurnayna iyo ibliis baa jinka ka mid ahaa kama saari karayso inuu ibliis ahaa kii laga tafiirmay. aayado kaloo qur-aana ayaa sheegaya in ibliis uu aabbahood yahay jinka, oo aayadahaasi waa kuwe ilaahay wuxuu leeyahay innahu yaraakum, ibliis iyo ciidankiisu waa idin arkaa, wa qabiiluhu way idin arkayaan. markaa ibliis jinku waa qabiilkiisii. markale ilaahay wuxuu leeyahay ma duriyadda, ma isaga iyo duriyaddiisa, ma ibliis iyo duriyaddiisa ayaad ka dhiganaysaan awliye buu ilaahay leeyahay. markaa haddii dee cid kale ay ka tafiirmeen oo ibliisba uu cid kale ka soo tafiirmay oo ka horreysay, dee waa duriyadtii lama idhaahdeen. markaa farshanka ah kii hore laga tafiirmay waa la baabiiyey. farshankaasi wuxuu sheegayaa bays sidaasa oo buuran isaga laftigiisu kuma fadhiyo, wuxuuna ugu fadhiyeen ibliis isagaa madax u ahaa dadka, waana sababta uu ugu helay ma garanaysaayey legitimacy, waana sababta uu u helay ma garanaysaayey in xitaa markii nebi aadan la abuuray, nebi aadanoo ma garanaysaayey weli aan ruuxda lagu la gelin ayuu ibliis baa soo dulmari jiray. acceska intaa leeg buu ibliis haystay, permissionka intaa leeg ee ma garanaysaayey samada uu ku socdo, malaa'igta uu kula sheekaysto ayuu haystay.
waxaa dhaxalsiiyey isaga ayaa ahaa kii markaa koowaad ee jinku ka tafiirmeen. qabiilkiisuna waa qabiilkiisii jinkan aan aragno, waa duriyadiisii. jin iyo jaanna waa the same kelima oo basically waxaa kusoo koobi karaa insi iyo insaan sida ay tahay un weeye. jinkii markaa samada joogay ibliis intayna nacladu ku dhicin wixii ka tafiirmay waa jin reer guuraale ma garanaysaay kategoriyo badan kala leh oo qaarkood ayna si toosa ibliis uga amar qaadan. laakiin kuwa markii ibliis uu soo degay ka tafiirmay waa kuwo uu isagu si toosa u maamulo oo loo yaqaano shaydaan. shaydaankaasoo micnihiisu yahay wax xun, waa kuwooga xun. jinka inta ugu xun ayaa basically waxaan odhan karnaa waa shayaadiinta. sidoo kale bini aadanka inta u xun ee la shaqaysata gruubkana waa shayaadiin. barnaamijkan yar waxaan ku eegaynay khalqiga bilowgiisii iyo sidii uu ku yimiday, dembiyadii waaweynaa ee ibliis iyo ma garanaysay bini aadankuba ay samada ku galeen, cadaawadda iyo dagaalka ilaa maanta socda halkuu ka yimiday. halkaasaynu ku eegaynay, taas oo maanta keentay in ibliis uu tartan uu ugu jiro sidii ummadda nebi aadan ka midka nahay uu karkaarka inoo weydaarin lahaa. sidaa darteed ayuu sameeyey adduunyo janno u eg si aan ugu dagalno. nebiyo bug ana uu soo wataa oo uu ka mid yahay dajaal. dajaal waa waxaan basically odhan karnaa waa nebigii ugu horreeyey ee been ah ee uu soo diro ibliis weeye. ibliis baa soo diranayo ilaahay nebiyadiisii soo maqalnay, bini aadanku arkeen. shayaadiin intaa ma garanaysaa bini aadanka iyo dhulka corruption ku sameynaysay way jireen, laakiin dajaal waa the most dangerous job uu ibliis qabto. sidaa darteed baa nebiyadoo dhan uga soo digayay oo ilaa nebi aadan uu ka digayay oo uu u sheegayay ma garanaysaa caruurtiisa uu lahaa ninkaas iska ilaaliya. waa shaqada ugu weyn ee uu ma garanaysaa ibliis qabanayo waxa weeye inuu soo saaro nebi been ah oo bug ah. laakiin iminka waxaan kuleeyahay inuu waa been iyo waa bug inuu been sheegaya maxaad ku garanaysaa? already caalamkanaa joogno wuu joogaa, wuu soo baxay. already caalamkan isagaa rangareeya lama arko, laakiin caalamkan dhan isagaa rangareeya. aan macal asaf ummadda islaamka iyo ummadaha caalamka oo dhanna wayba raaceenba. already asxaabu dajaal baan nahay, waynu raacnay. markaa ka riyalkii markuu soo baxeen aragnana ma kula tahay inaad diidayso? already waabad la socotaaye haddaad dajaal la socotaa oo nidaamkiisa aad ku shaqaysaa oo waxyaaluhu soo saaray aad isticmaashaa oo nidaamyadu dhibay ma garanaysaaye aad isticmaashaa oo lacagta uu samaystay aad isticmaashaa. ma kula tahay markaa hadhow toole inaad ma garanaysaa garan karto? ilaan beentiiba garashay u baahan tahay, beentiiba garashay u baahan tahay. ka waran haddaabad garan weydo inuu been sheegayo. ilaan nidaamyadana sidaa iskuba bedelayaan unbaa beri toolana madaxweyne qurux badan oo khatara oo soo baxay oo kaa siyaasad fiican buu noqonayaa. maxaad ku diidi markaa? soo iska raaci maysa. markay dadkaagu gaajoonayaan markuu soo baxo ee mucaawino uu kuula yimaado maxaad ku diidi doontaa? maad isweydiisa. markaa dajaalna waa ninka noocaasa, waa shaqada ugu khatarsan ee ibliis inta uu jiro uu qabtay. inta wuxuu ka faa'iidaysanayaa dhammaadka caalamka. sidaa darteed isaguna waa inuu soo diro the most dangerous job uu samayn karo, taasoo ah dajaal. barnaamijkan barnaamij lamida intaan ku kulmayno waxaan idinka tegayaa fi amaan illah.